بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. intii dhimatay allaha u naxariisto, inta dhaawacana ilaahay subxaanahu watacaala ha caafiyo oo ha siiyo caafimaad sariixa. maalin ilaahay keeno waxaa magaalada muqdisho oo ah cuduntii dalkeena soomaaliya lagu dilaa dad masaakiina, dad aan waxba galabsan. waxaa loo dilaa siyaabo kala duwan, see u nooshahay, see horumar u gaartay, dana gaara, dana shaqsiyadeed, ruux walba ayaa loo dilaa. muqdisho waa magaaladaas aada u quruxda badan, dadka iyo ayadaba waxaa loo diidan yahay waa nabadda. ma jirto magaalo kaleeto ee ku taala dalka soomaaliya ee la qarxiyo ee dhibaato ka socota oo aan ka ahayn muqdisho. muqdishona waxaa loo qarxiyay iyo dadkeeda runtii in badan waan ka dharagsanahay. nin walba gobolada maanta nabadda ah hadday saa u qurux badnaan lahaayeen ama saa ay u magaciisi ahaan lahayd, ciduma taabnayna bilicda iyo quruxda ay lahaan lahayd. laakiin aniga soomaaliya meel walba meeshii qurxoon waa magaaladayda, waana dadkayga. reer muqdisho dhibka idin haysta inta ugu badan mas-uuliyadeeda adinkaa iskale. waxa aa u leedihiinna waxay tahay cadowga kan idin dilaya iyo kii adinka walaalkiina ma kala saartaan. mid walba adinkaa hoosta ku haysta oo hoosta ayuu idinkaga jiraa, oo kii idin dilayay, kii idin qarxinayay adinka iyo hoosta idinkaga jiraa. dal walba waxaa dhisa dadkiisa, dal walba waxaa hormariya dalkiisa. nin dalkiisii gubaya, naag dalkeedii gubaysa. maantayta waxa walba waxaan quruxda magaalada le waxaan ka door bidnay khabyaalad. maxaa iga galay? ma anigaa iska leh? reer hebelaa leh, wuu kugula nool yahay, wuu kalda aniga gobolkaygiyaan aadaya, laakiin gobolkan waxba igama gelin. markii la qarxiyo oo qarax dhaco, baraha bulshadan kuu soo gala, waa ku cayna, waa ku aflagaadayna. mooryadan intii la qarxiyay ma jiro jixinjix. dhalinyaradii iska laheedna waxaaba u maleysaa maantayto oo gobolkan u dhasheenba inay ayaga naftirkoodiiba aysan dooneynin horumar iyo sidee aniga aan facayga ku gaaraa iyo sideen hiigsi aan ku gaaraa. aabaha ayaa shalay la dilay, walaalka ayaa la dilay, askariga muqaadaraadka iyo balaayada isticmaalaya ee wiilka jaamacadda hooyadii yaanyada uga bixiday ee ay kusoo tiir iyo tacabka beesha ee intaasoo sano wax soo baraysa qoriga u quuray ee ku dilaya, kaagii caqliga dhaamay. hadduu maantayto uu oo haddii aad waxba muqaadaraad aan isticmaalaynin, haddaad raalli ka noqotay midka halkaas habeen iyo maalin jaadka iyo qurunka iyo faqsiga iyo magacisiga dalka horta askartoodu ay jaad cunayaan oo balaayo cunayaan, horta howshiisu ma sahlana. laakiin maantayto shabaabka lala dagaalay nin baan dooneynin in lala dagaalo, nin baan dooneynin dalka in laga xoreeyo. baadida nin baa kula doonaya, daalna kaa badan. kuwa baadida idinla doonaya daalkana idinka badan waa kuwa doonaya habeen iyo maalin inaad hooyo weydaan, walaal weydaan, galangal ku noolaataan. war dhalinyaroy maantayta social media iyo qabiil iyo reer hebel iyo laandheere iyo anaa kaa fiican iyo anaa kaa gada waxba idiima taraysa. rag baa dayaxa higsaday hurdada. war dhalinyarada reer muqdisho iyo reer soomaaliya waa hurdaysiin, hurdo ayaa ku jirtiin, riyo ayaa ku jirtiin, waxa aa ku jirtiin yacni dhalinyarada dalka kuwii dibadda kusoo qaxayo waxba faa-iidaa maadnaa keenini. kiina igu roon ina adeerkaa markuu kursiga ku fariisto ayaad gadaal inta ugu noqoto shilin xaaraana qaadata. kaaga kaleetona social media waxaa maanta dhan ku haysaa reer hebel annagaa ka fiican. sidaanu si maahana toosa dhalinyaro. dal walba waxaa badbaadiya dhalinyaradiisa. dal walba waxaa u kaca dhalinyaradiisa. dal walba waxaa haddii odayaashii 90 jirkahay ee sii gadanaya maalin walba suulka wax ku saxiixaya aad rabtaan odaygaas inuu wax idiin saxiixo, wiilkaagii bedeli lahayna aad ama la dilo
ama uu dalka ka cararo ama intuu social media soo galo oo liibiya iyo adduunyo iyo tahriib iyo qaxar iyo dhib soo galay uu maanta ku faanayo intuu iloobay magafu inta iloobuu reer hebel laandheero ku faanaa magafuu iloobay wuxuu ku faanayaa reer hebel ayaan ahay anigaa saan ku yeeli jiray anaa saan ku yeeli jiray shalana soomaaliyay aa ahayd maantayto dhalinyarada soomaaliyeed ee geyiga soomaaliya meel aa ka joogtaa dalkiina waa barwaaqe dalkiina u istaaga ee qabyaalada iska daa wadan waxaa leedihiin xeeb dhan ay badweynta indiya ay ku wareegsan tahay markaasaa dalkaagiyo barwaaqaa dacasaad ka wadataa nin shisheeyaa iska dhurana adigana reer hebel iyo reer hebel aa ku jirtaa warsaan faa'iida maaha haddaad tashan weydaan waa la idiin talinaa waxaana idiin talinaya aalada social media ee habeen walba aad macno la-aanta u fadhidaan ee maalin iyo habeen aad karan garan weydeen ninkii samaystaa idiin talinaya salaamu calaykum aan idin dhahay